السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيرت الدمانتي وضو سلامي حياكم الله. صدقوا أركب مقالك سوق العالم كله هو العيان حينو كهذا محاين مسكدينا صراحة بيانك قبل بحتى جرمايو هذا تاي بانكيدا هذا تاي كريبتو كارنسيجا أو ريجوليشنز ولا الوهي ريجوليشنز كا أو إيجو أي نوهي إماكا ولا SEC سي ده أبو الدولة الأمريكان هذا يراهدو gebi ahaan oo kriptada ay ka soo horjeedaan subxaan allah bankiyadoodii baa imika dhulka galay iyo bankiyada caalamka. Silicon Valley Bank is causing shockwaves across the entire business world. With the FDIC now in control, customers can access up to $250,000 on Monday. But as ABC's Jacqueline Lee explains, that's not enough for many companies left struggling to manage their finances. maantana waxaan arkay bankiyada wadamada Yurub iyaguna hoos u dhac waalan oo cajiiba laga dareemayo qodobo fara badan insha Allah tacaala waan isla eegi doonaa oo dabkan ilaa imkayna haysta meesha ku bilaabmayna waxa ugu horeeyay Silvergate-na waxaan u maleynayaa imka warkiisa wad haysaan oo tacaamulaad aad iyo aad u fara badan ay la lahaa dhinaca cryptocurrency-ga marka insha Allah akhbaaraha ugu muhiimsan ijtimaaca federaaliga isbuuca soo socda insha Allah taala wada dul istaagina maadaama suuqa imaka wadcigiisa ay xaaladiisu maartay ay ku sugan tahay meel xasaasiya dariiqada uu la tacaamuli karo taana insha Allah waynu eegi doonaa ayaakum Allah bayana hadalkayga ugu badan soo dhawaada. حياكم الله خيارته مرة بعد من سوسو لابني وحدوني نوغويسي إن شاء الله تعالى تكنيكال أناليسيس كبش مارش واسعودة ولي استوى إنجليسيسو إن شاء الله تعالى وحرجينا يتكفايدستان كورس ونحوية هالبل فرية وهالكا 10 دي ودوبن أتكلا سعوتد 10 دون ودوبينهين wax laga warwaro ma jiro anytime nood ku soo biiri karta koorsiga ka insha Allah taala waxaan oran lahaa fursada qaaliga ka faa'iideysta waxaana digla soo xiriiri kartaan nambarka WhatsApp-ka aad ku aragtaan shaashada haddaynu dhanka kriptada aan kaga bilowno wararkii ugu dambeeyay iyo waxyaabaha ka dhacay maartay wiigadan ugu dambeeyay insha Allah taala wararkan wad aragteen inta badan laakiin insha Allah waxaan doonayaa yara dul istaago si yaro degdega kadibna wadiga caalamiga ee baananka iyo waxa saameynayaan dul istaagna insha Allah sida halkan aan ku aragno waxaan aragnaa regulatorska oo ka dalbaday shirkadda Paxos oo soo saarta BUSDT inay joojiyaan tacaamulka ay la tacaamulayaan Binance ay u soo saaraan BUSDT arrintaasna arrin aad iyo aad u xun bay ku noqotay aamihii u dhaweyd kriptada oo halka Binance lacagtooda BUSDT qiimo aad iyo aad u fara badan ay beeshay haddaynu khabarkan kale u boodno waxaanu arkaynaa shirkadda Robinhood amba applicationka Robinhood ina SEC da hay'adda sharciyeynta exchange-da ay eedana daba socoto taas oo cryptocurrency-ga ay ku hayaan application-kooda oo la maalgashto si aan sharciyeysan looga ganacsado amba dadku ay weybsadaan taana mushkilad aad iyo aad u weyn bay samaysay Robinhood oo halka SEC da dabagal inaba caadi ahayn buu ku samaysay markeeda horeba Robinhood coinan aad iyo aad u fara badan kuma jirin waxaan u maleynayaa ugu badnaan waxa ku jiray 18 cryptocurrency taasoo halka dadku ay ku kala iibsanayeen oo iska iibinayeen markii faa'iidada ay helaan taasina khabar kale oo cryptada aad iyo aad ayuu ahaa haddaynu eegno khabarkan kale oo ku saabsan shirkadaha caanka ah ee paymentka ah Visa iyo Mastercard ayagoo joojiyay tacaamulka la tacaamulayeen cryptada taas markay arkeen xaalka cryptada inuu aad iyo aad u xumaaday taradii u dambeysay odaygan hay'adda SEC da madaxa uu ah Gary Gensler oo investigation inaba caadi ah ku haya cryptocurrency-ga asna headlineska bacanawiisha maartay akhbaarta aad iyo aad buu maartay fatradan u dambeysay u haystay taas uu doonayo maartay inuu xakameeyo cryptocurrency-ga amba sharci uu halka uu u dhigo arrintaas oo xaqiiqatan fatradii u dambeysay 3 isbuuc ilaa bishii u dambeysay cryptada aad iyo aad ugu xumaa haddana waxaanu arkaynaa bitcoin-ka oo saqafka 25,000 jabiya ilaa 26,000 ee dheeraad gaadha oo haddana halka ka soo daata marka odayga ilaahay sharkiisa ay naga tiro laakiin waa mowduuc aad iyo aad muhiim ah oo u baahan ina lala socdo sideedabana markuu wuxuu cusub yahay regulationska iyo dadka maartay inta badan tadakhlka sameynaya waa badanaysaa stock marketka guud ahaan haddii laga hadlo sharciyeyntiisa waxaa la bilaabay 12 sanadood kadib markii stock marketka la bilaabay waddanka Mareykanka marka imika waxaad moodaa marxaladihii stock marketka in cryptoda maartay soo galayso madaxweynaha waddanka Mareykanka asna ka muhaadin SEC oo ku soo biiray teamka oo wuxuu doonayaa inuu taxation uu sameeyo amba cashuur laga qaado dadka miningka sameeya ee bitcoin-ka taas uu doonayo 30% inuu ka qaado maadaama ay isticmaalayeen kaarbad aad iyo aad u fara badan marka khabarkaasna asna wuxuu ahaa mid xaqiiqatan yara saameeyay cryptada mowduuca haddaynu soo laabano bankiyada iyo kuwa fail garoobay ee waddanka Mareykanka sidan imka liiskan aan ku aragno waxaynu aragnaa in laba bank ay fail garoobeen March 10keedii iyo March 12keedii Silicon Valley banka gobolka California laga leeyahay oo muddo 40 sanadood jiray ayaa saameynta weyn maartay suuqa ku yeeshay data stock marketka ee cryptada oo si weyn u daatay banka kale ku xiga waxa weeye Signature Bank oo gobolka New York laga leeyahay asna gobolka New York laga isticmaalo marka maadaama uu ahaa Silicon Valley banka saameynta weyn ku yeeshay iqtisaadka waddanka Mareykanka taas oo xitaa Fedka oo banka dhexe Mareykanka ah soo dhexgalay si uu sameeyo waxa la yiraahdo bailout waxa weeye si uu u badbaadiyo banka bailout-ka
amba badbaadistan ay wadaan banka dhexe Mareykanka waxay ku badbaadinayaan bay la tahay shirkadaha venture capitalka ba inta ayaga ugu muhiimsan ee maslaxadu ay ka wada dhaxayso su'aalo far badan oo dhinaca ku xayiran. Dhinaca kale haddaynu eegno dadka depositorska amba dadka hantidooda banka la tacaamuli jiray ee dhigi jiray hay'adda la yidhaahdo FDIC Federal Deposit Insurance waa hay'ad lacagaha depositka ee baanka la geliyo hadda jeer insure gareeya. Hay'addaasi waxay dadka u celin kartaa lacag gaaraysa $250,000 marka qof amba hay'adaha maaragtay investmentka ah haddii lacag intaa ka badan banka ay u taalay arrintaas ka kacbay noqonaysaa laanu bankan imaka lacag aad iyo aad fara badan ayuu maamuli jiray lacag $200 bilyan ka badan. Marka xaqiiqatan waxay isweydiinta la imaka dadka lacagaha $250,000 ka badan qaabka loo cabadayo iyo xagga lacagta laga keeni karo banka iyo historygiisa iyo qaabka u daatay haddaynu dul istaagno insha Allah tacaala. Silicon Valley haddaynu isla eegno kaalinta uu ku jiro marka laga hadlayo bankiyada waaweyn sideedaba waddanka Mareykanka contributionka amba lacagta fara badan ee iqtisaadkooda saacida marka laga yimaado wax soo saarka waddanka Mareykanka amba waxa loo yaqaan GDP waxa ku xiga qitaaca bankiyada. wax soo saarka Mareykanka sanad walba waxa soo gala $25 trilyan. waddanka Mareykanka haddaynu isla eegno waxa ku yaala 157 commercial bank oo baankaas ay u dhaxeeyaan qaar waaweyn iyo qaar dhexe iyo qaar yaryar. Silicon Valley wuxuu ka mid ahaa kuwa dhexe baanka total ahaan marka assetka amba hantida ay baankaas ay hayaan xaqiiqatan hanti aad iyo aad u fara badan ay hayaan taasoo u dhow GDP-da amba wax soo saarka waddanka Mareykanka. hantidaasna waxay gaaraysaa 23 amba almost $24 trilyan aad iyo aad u muhiima weeyaan qitaaca bankiga. lacagaha ku jira amba hantida ku jirtana waxa weeye lacag aad iyo aad u fara badan. hadda jeerna waxaa jira erey la yiraahdo dhinaca bankiyadu si wanaagsan ay u shaqeynayaan iqtisaadka waddanka Mareykanka meel wanaagsan ayuu maraya. bankaasna wuxuu caawin jiray shirkadaha venture capitalka inay investment sameeyaan gaar ahaan ka shaqeeya ee suuqa markaa doonaya inay soo galaan. marka halka shirkadaha waaweyn ee venture capital ee maalgashada maaragtay shirkadaha yaryar ee soo baxaya amba mustaqbalka wanaagsan leh kuwa ayuu maaragtay lacagta u hayay shirkadaha yaryar oo loans uu siin jiray si uu caawiyo inay lugahooda ku istaagaan oo halka journeygooda amba businesskooda ay u bilaabaan. marka shaqada asaasiga uu hayay intaas ay ahayd. magacan uu la baxayna waxa weeye magac aad iyo aad u caan ah oo Silicon Valley waxa lagu tilmaamaa inay tahay magaalada technology-ga oo had iyo jeer shirkadaha yaryar ay doonayaan maaragtay inay caalamka technology-ga shirkadaha waaweyn ku doonayaan inay ku soo biiraan had iyo jeer ay tagaan. xaqiiqatan wuxuu ahaa bank aad iyo aad loogu kalsoon yahay oo shirkadaha in badan caawin jiray. san liiskan aynu ku aragno wuxuu ku jiray intaan crashkiisu aanu dhicin kaalinta 15aad. marka imika maadaama liiskii laga saaray kuma jiro kaalinta 15 ugu horeeya. 4 bank ee u horeeya quraata hadii laga soo bilaabo Wells Fargo, Citigroup iyo Bank of America iyo JP Morgan waxa weeye baanka Mareykanka u weyn. baanankana xaqiiqatan haddii ka hadalno assetka amba hantida ay leeyihiin waxay matalayaan 4 bank oo quraata 40% baanka Mareykanka. haddii 4 bank khalkhal amba waxay ka dhacaan xaqiiqatan arrintaas waxay saameyn doontaa caalamka oo dhan maaha waddanka Mareykanka quraata. marka imika saynu aragno qitaaca bankiga meel xasaasi ayuu maraya runtii. erey kale ayaa jira oo ah too big to fail oo bankiyadu maadaama lacagta fara badan ay soo xareeyaan inay burburaan way adagtay runtii. marka dhaqaale burburkii 2008kii dhacay iyo imika ikhtilaaf weyn ayaa maaragtay ka dhaxeeya bariga 2008 security-ga iyo bondska iyo sharciyeynta waddanka Mareykanka ee dhinaca bankiyada ku saabsan aad iyo aad uma adkeyn. imika aad iyo aad bay u adag tahay. xitaa imika bankan Silicon Valley ee burburay lacagtiisa si wanaagsan ayuu kala qaybiyay laakiin markii la ogaaday inay mortgage backed securities amba guryaha inay lacagta dadka ay hayeen ay investmentka ay geliyeen kadibna dadka markay ogaadeen waxa dhacay wax la yiraahdo bank run banki ku yaacay oo lacagtoodii doonayay inay soo ceshadaan. taas ayaa maaragtay sababta weyn u ahayd. sababta weyn ee kalena waxay ahayd amba arrintaas saameysay in heerka ay gaadho waxa weeye Fedka amba banka dhexe waddanka Mareykanka maadaama sicir bararkii waxa kameyn kari waayay uu suuqii cid walba ku qasbay interest rate-ka sicirkan faa'iidada kolba uu qaadayo. marka faa'iidada ay ka heli jireen mortgage backed securities oo iyaduna iska bonds ah oo shahaadadahan waddanka Mareykanka ay bixiyaan oo amaahda ah oo taa halka sanad walba interest rate yar ay ku siinayeen dadka maadaama Fedkii uu qaaday
interest ratekii marka waxay heleen dadkii iyo institutionadii kale meelo kale oo lacag fara badan ay ka sameeyaan oo aan hayn kuwa muddada foga marka mortgage back security hadda jeer waxa way muddada fog ilaa 30 sanadood 20 sanadood buu gaaraya marka faa'iido yar oo kooban 2% 1% caynkaas ayaa laga helaa marka maadaama imaka bondska 2 yearska sida videoga hore ku sharxay 2 yearska ay faa'iido fara badan ay ka sameeyeen dadku taas ay intooda badan ay u guureen markii la ogaadayna arinta xaqiiqatan waxay noqotay mid aad iyo aad u xun oo saameysay inuu baankaasi collapse ku dhaco uu burburo خيارات عدد بني سلامي انتهى إن شاء الله تعالى كسو قبقبيننا مدونية حلقة إنه نقبضته إن شاء الله بارت 2 يا بارت 3 أو تكنيكال أناليسيس نقول تلقليه إن شاء الله يقضوا بضا وقوم مهم سنية إندكسسكا إنه إيجنو إن شاء الله تاس أيان كود ذاليا ويجن خير بدن بين رجينيا خير بدن بين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته